kalfadhiga shanaad ee ay yeesheen golaha wasiirada jamhuuriyadda Soomaaliland oo uu shir gudoominayay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo uu weheliyay madaxweyne ku-xigeenkiisa Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici waxa si mugla loogu lafaguray shirkan golaha wasiirada Soomaaliland dagaalada dhexmara qaar kamid ah beelaha Soomaaliland taasina ay saameyn taban ku yeelatay bulshada iyo wadajirkeeda sidii xal waara looga gaari lahaa xubnaha golaha wasiirada Soomaaliland ayaa dareen adag ka muujiyay dhalinyarada rabshadaha ka sameeya magaalooyinka waaweyn ee dalka qaar sidii talaabadana looga heli lahaa xal waara oo wax lagaga qabanayo golaha wasiiradu waxa ay soo jeediyeen inay lagama maarmaan tahay in la helo xal waara oo lagu xakamaynayo lagagana hortagayo isku dhaca beeluhu inaanay dib u soo noqnoqon isla markaana la helo nidaam dawladnimo oo arinta ka hortaga si bulshadu ay u hesho nabadgelyo buuxda wixii dhibaato ah ee imika jirana lagu dhameeyo hab dawladnimo wasiirada Soomaaliland shirkan ay yeesheen waxay ku dheeraadeen in dalka ay ka jirto xaalad abaareed loona baahan yahay in la helo qorshe wax ku ool ah oo wax lagaga qabanayo isla markaana lagaga hortagayo abaaraha dalka ku soo noqnoqday isla markaana la sameeyo daraasad sal balaaran oo ku wajahan abaaraha sidoo kale waxay golaha wasiiradu ka hadleen ka ganacsiga noocyada duurjoogta oo qayb dalka kamid ah laga soo sheegayo shirkan golaha wasiirada jamhuuriyadda Soomaaliland ee ka qabsoomay xarunta qasriga madaxtooyada Soomaaliland waxa ka soo baxay qodobadan in gudida nabadgelyada ee golaha wasiiradu ay daraasad qoto dheer ka sameeyaan sidii looga hortagi lahaa dagaalada beelaha dhexmara ee soo noqnoqda xal waarana arinta looga gaari lahaa laba in la sameeyo daraasad cilmiyeysan iyo qorshayaal wax ka taraya abaaraha soo noqnoqday iyadoo lala kaashanayo aqoon-yahanada iyo jaamacadaha dalka saddex in sida uu dhigayo xeerka number 96/2015 ay mamnuuc tahay in muwaadin iyo ajnabiba aan laga ganacsan karin duurjoogta dalka nooc kasta oo ay tahay iyo fal kasta oo lagu dhibaataynayo duurjoogta waxaana looga jeedaa xawayaan kasta oo leh lafdhabar ama bilaa lafdhabar ah waxaana ku jirta ugxanta iyo dhashooda waxa ka baxsan xeerkaasi sida uu qeexayo bini'aadamka xoolaha la dhaqdo iyo kalluunka Ridwaan Caydiid Ismaaciil Akiid telefishinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland xarunta madaxtooyada